Imaaraadka Carabta ayaa raadaar casri ah oo ciidan waxa uu geeyay gegada diyaaradaha ee Boosaaso Airport si uu halka uga difaaco baa la yiri weerar kaga iman kara Xuutiyiinta dalkaasi Yemen sida ay arrintan la socdaa ee imika u sheegeen warqadka Middle East Eye intii la socotayna xogahan hore ayaan u soo gudbinay balse xilliga waxaanu soo xiganaynay wariyaal maxalli ah laakiin haatan waxaan haynaa sawirro dayax gacmeed muuqaallo u qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya in horaantii bishii Maarso halka la geeyay raadaarka ee Israa'iil samayso ee loo yaqaano ELM-284-3D oo ah nooca ku shaqeeya falaaraha digitalka ah ee casriga ah taasoo ka dhigan in isaga oo aan anteenadiisa warwareejin wax ka arki karo wareeg buuxa oo ah 360 degree xogo ay sidoo kale dadku heli karaan ayaa muujinaya in Imaaraadku uu si isa soo tarayso u adeegsanayay garoonkaasi Boosaaso si uu taageero ciidanka loo yaqaano Rapid Support Forces ee labadii sano ee tagay dagaalka sokay ka waday dalkaasi Suudaan taasoo xitaa keentay in dowladda Suudaan ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ la tiigsato dalka Imaaraadka Carabta oo ay ku eedeysay xasuuqa uu ka wado dalkeeda isagoo dabcan adeegsanaya dagaal wakaaladeed taasoo Imaaraadkuna inkiray Imaaraadku waxa uu raadaarkan rakibay in yar uu kadib markii kooxda RSF laga qabsaday magaalada Khartoum horaantii bishii Maarso ayay ila goboleed u sheegeen warqadka Middle East Eye ujeedada raadaarka ayaana ku sheegeen inuu digniin hordhaca ka bixiyo weerarada daroonada iyo gantaalaha ah ee gaar ahaan ka imanaya dhinaca Xuutiyiinta ee lagu bartilmaameedsan karo garoonka Boosaaso taasoo ka dhigan in Imaaraadku uu difaacayo agabkiisa yaala garoonka balse aanu difaaci doonin magaalada kale ayaa sidoo kale warqadkan u sheegtay in raadaarkan halka la geeyay dabayaaqadii sanadkii hore balse Middle East Eye ma xaqiijin karo xogtaasi waana xogaha la siiyay warqadkan sidoo kale inta raaciyeen in Imaaraadku uu garoonka Boosaaso adeegsanayay si uu u taageero RSF isagoo halka ka dejinaya diyaarado xamuul oo military oo waaweyn oo sida hub culus iyo rasaas mararka qaarkood 5 jeer markiiba waana xogta lagu taageeray sida ka muuqata sawir dayax gacmeed oo la qaaday 5 bishii Maarso oo muujinaysa diyaarad military oo xamuul ah oo fadhisa garoonka Boosaaso yeelkeeda markii warqadku uu la xiriiray wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Cabdinuur wala uu ka gaabsaday in arrintan ka hadlo misna waxa uu u diray wax loo yaqaano internet memes oo ah sawirro uu kula diganayo oo uu ku xifaaleynayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan taasoo aan dabcan ku habboonayn qof mas'uul ah laba ilood oo kale ayaa sidoo kale waxay sheegeen in madaxweynaha Puntland ee Saciid Cabdullaahi Deni aan wax ruqsad ah arrintan ka weydiinin dowladda federaalka Soomaaliya iyo xitaa baarlamaanka maxalliga ah ee Puntland kana waa heshiis qarsoodi ah oo xitaa aanay ogeyn madaxda sare ee xukuumadda Puntland oo uu ku jiro golaha wasiirada ayay ilo arrintan xog toos ah ka haya u sheegeen warqadka aamuska arrintan ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si ah mid aan la fahmi karin ilaas waxay sidoo kale warqadka u iftiimiyeen xogo ku saabsan in garoonka Boosaaso sidoo kale laga dejiyay calooshad u shaqaystayaal u dhashay dalka Colombia oo loo gudbiyay dalkaasi Suudaan walow aanay cadeyn cidda siisay dalku galka Soomaaliya maadaama Muqdisho aanay arrintan waxba ka ogeyn dalkeeda tan iyo 2009 Imaaraadka ayaa waxa uu ka galaabaxayay Puntland oo juqraafi ahaan u dhow dalka Yemen isagoo halka ku tababaray ciidamo uu sheegay inay la dagaalamayaan burcadbadeedka oo loo yaqaano PMPF Imaaraadka ayaa sidoo kale xiriir aanay u duceynin dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu leeyahay maamulka gooni-goosadoonka ah ee Somaliland oo uu ka sameeyay maalgashi fara badan oo aanu kala tashan dowladda federaalka Soomaaliya wasiir dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaana toddobaadkii tagay waxa uu sheegay inay warqad rasmi ah u gudbiyaan Imaaraadka si uu joojiyo buu yiri in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ku soo dhaweeyaan hab maamuus la mid ah midka madaxda la aqoonsan yahay warqadka ayaa inta raaciyay in sababta uu Deni tilaabooyinkan u qaadaya ay daaran tahay inuu Imaaraadka ka soo xasiliyo kaalmo maaliyadeed oo uu ku xoojiyo hankiisa ku aadan inuu madaxweyne ka noqdo dalka Soomaaliya walow la isweydiin karo halka ay joogto Soomaaliyada xukunkeeda loo malabsanaya haddii uu nin kasta xaafadiisa dunida ku soo fasaxo isaga oo u dhaqmaya sidii dal madax bannaan waxaa jirta doorashada madaxweynaha ee 2016 waxaanu doonayaa nooc kasta oo taageero ah si uu u guuleysto codka qaranka ayuu qof kale oo aan magaciisa carrabaabin u sheegay warqadka Salim Saciid Salim oo u dhuun daloola arrimaha gobolka isla markaana maareeyo ka ah Sidra Institute oo saldhigata Puntland ayaa isna waxa uu farta ku fiiqay in marka la isu geeyo xogaha baraha bulshada iyo muuqaalada dayax gacmeedka imika soo baxay isla markaana arrintan aanay weli ka hadlin Deni iyo maamulkiisu ay arrintaasi wax cadeynayso aamustaasi waxa uu soo jeedinayaa in sheegashadana ay runtahay ayuu yiri Salim oo inta ku daray inaan isaga ka yaabinaynin tadawurka iyo soo ifbixista arrintan maadaama uu og yahay xiriirka muddada dheer uu Deni la lahaa Imaaraadka Carabta waxa kale oo hay'adda Sidra ee wax falanqeysa ay farta ku fiiqday in sababta Muqdisho arrintan uga aamustay ay tahay inaanay ka careysiinin Imaaraadka maadaama ay madaxdeedu kaalmo ka helaan Imaaraadka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku tiirsan yahay taageerada Imaaraadka si uu la dagaalamo al-shabaab isla markaana uu nabad uga dhaliyo dalka ayay tiri Sidra
marka macna ay sameynaysaa in arrimahan lagu xalliyo daaha gadaashooda. Ilkeeda halkan waxaa ka cad in Deni uu arrintan u sameynayo inuu xil ka qabto Soomaaliya isaga oo dalka ka ogolaanaya in lagu xadgudbo madax banaanida geeye iyo danaha qaran ee dalka Soomaaliya, maadaama ay khalad istiraatiiji ah tahay in Soomaaliya looga duulo dal ay Soomaaliya saaxiib soo jireen la tahay sida Suudaan, iyo sidoo kale in halista kooxda Xuutiyiinta loo bandhigo shacabka Soomaaliyeed. Khaladka kale waxa uu yahay in hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya uu isna ku dhaqaaqay tilaabo ah inuu arrintan ka aamuso si kaalmo looga helo isla Imaaraadka oo qaybin iyo fadqalala ka wada Soomaaliya, taasoo ah fashil mas'uuliyadeed. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.